السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin. waa taxanaheennii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, wuxuuna inoo marayay qaybihii guurka oo aynu ku sheegnay 18 qaybood. waxaan soo qaadanay oo qaybtii u dambeysay aynu ku soo sheegnay ilaa 4 guur oo ka mid ahaayeen guurka guryo noqoshada, guurka gaadashada. waxaana hadda ka bilaabi doonaa guurka 16aad oo ahaa guurka doorista ama isa siinta. kaasaynu ka bilaabi doonaa, waana insha allahu soo dhammaystiri doonaa oo guurkii 18 qaybood ahaa 4 qaybood inoo hadhay ayaynu kusoo khatimi doonaa. guurka 16aad oo ah kanaynu ka bilaabayno waa guurkii loo yaqaanay doorsiinta ama isa siinta. waa guur gabadhoona aabaheed waxba uusan ka weydiinin uu iska bixin jiray. tusaale ahaan, ninbay gabadhu joogtaa, xilligii guurgaarkana maraysa ayuu nin xoolo badan oo la yaqaano hanti badan ka helayaa. wuxuu leeyahay, hebelow gabadhaadaysii waan ku siiyey buu leeyahay biduuni taradud, ileen cagweyntaa talinayse. guurkaas mararka qaarkood dhibaatay kala kulmi jireen gabdho, sababtuna waxa weeye ninaynan aqoonin oo aynan isku da ahayn ayaa kurka loo geliyey. deetana iyadoon rabin ayaa lagu juujuubi jiray, ama intayba cararto ayay halaqa iyo libaaxa iyo waraabaha duurka u geli jirtay oo la waayi jirayba. guur fiican muusan ahayn. guurka 17aad waa guurka la odhan jiray la bixista ama la tegista. waa guur ay heshiis ku ahaayeen gabadha iyo wiilku. waa guur sheeko iyo hasaawe fara badan kadib ay ku heshiiyeen in israacaan. wuxuu ku bilaaban jiray waxa weeye is arag iyo hasaawe iyo wada hadal, kadibna waa la ballami jirayoo waa la isla bixi jiray. halkaana waynu sharaxi doonaa. sida caadiga ah, gabadhu markay hanaqaado gashaanti ay noqoto, waxay noqotaa reerka gabadhu ciidamisa oo ama adhiga raacda ama dhaanka dhaamiso oo dee xoogga reerka ayay noqon jirtay. wiilkuna sidoo kale, oo nin dee xoolihii shuba, geelii raaca, xoolihii oodu ahaan jiray. kadib asagoo shaqadii noocaasa ku jira ayuu arkayaa gabadh dhaan wadda uu u bogay. haddana wuxuu odhanaya, gabadhaas waa inaan maanta ka daba fulaa. gabadhii oo dhaanka wadda ayuu ka daba imanayaayo waddada lagu soo sheekaysanayaa. waxay leedahay, haddaad anigii dee aad rabto caawa imow, waxaad naiga soo gashaa wiilka hebel la yidhaahdo oo ilmaadeer nahay. kadibna xilligay xooluhu xaroodaan ayuu soo guuri jiro. waxaa laga yaabaa 3 saac 4 saac dhul duura oo libaaxyihii masasle iyo hayjad inuu soo jiiro. kadibna wiilkii gabadhu sheegtay wuu soo kor istaagayaa, assalaamu calaykum, salaam, hebel miyaha kaali balo, halkaasaa la yar istaagaya. kadib wuxuu leeyahay, salaan kadib markay isbartaan, gabadha leeyahay heble ayaan haasawnay, xoogaa sheeka naga dhaxaysa, aday ugu soo kaa xidhay dee gabadha ii keen. haybu odhanaya, halkaas ii joog buu leeyahay. waxaa laga yaabaa dee kan laftiisa wiil baa la socda. inta badan qof keligii meel ma maro oo iska yardhibaanta dhulka reemiyi wey. wiil kalaa la socda. kadib wuu noqonayaa harar tolana iyo kolba markaa gogosha la haysto ayuu u dhigayaa. kadibna gabadhii buu keenayaa. halkaasaa lagu sheekaysanaya. mararka qaarkood dhici jirtay ninka gabadha rabaayay inuu yahay afkacor, aan sheekeyn karin, oon hasaabaha ku fiicnayn. dadna wuxuu soo kaxaysan jiray nin aftahana oo sheeko badan. kadibna gabdhaha laftoodu arrintaas gooni baadh bay samayn jireen oo gabdhaha maaragtay dee caqliga badan waxay odhan jireen markii la wada fadhiistay ay ninkan afqabeenkii uu hadalka daldalmayo ayay isweydiin jirtay oo dhihi jirtay, makanaa kuu socda mise ninkan kale. say u ogaatay waxay dhihi jirtay,
ma adiga ay raba oo waxa way sheekadeenu ma labadeena isawa wiilkan kale ee walaalkeena maya wiilkan kale ee walaalkeena ila qaabku u hadlayay fahmaysaa mugta arrintaas ay uga hortagto oo labadoodu maartay wada sheekaystaan oo hadduu nin haytolosho liita yahay iyo inuu rageed yahay u kala ogaato ayay waxay odhan jirtay af jooga iyo addimo lo-aad midna looma adeegeen noo isu kaanaa bannee wada hadal leh ilan waa rune mustaqbalka iyo raasamaalku labadooda way wax maartay u dambeeyo marka qof amuugan ilan kuwadi maayo ruuxane qofkan amuugan hadduu yahay qofka wax doonaya isu kaanaa bannee bay odhan jirtay halkaasuna fashilku ka iman jirayoo dee hadduu nin rageed aamusan yahayna uu soo marbixi jiray hadduu haytolosho gacanta la jiidaa yahayna halkaasay kaga tegi jirtay haasaawaha iyo sheekadu way badnaan jirtay waagi horena waxaa la odhan jiray xudxudasho oo ku abwaankii lahaa gabadha sasabanayay nin muraayaday lowga midig meeriyaan ahayee muslin ii dhow kuma roori karo mayayna soo hooriye meel ii bannee ina abtaay ku martaan ahay gabadha sasabanaya soo maartay sheekada waxay socotaa marka u dambaysa gabadhii wiilku waxay ku heshiin jireen inay isla baxaan waana laga qarinayaa aabaheedii heerkooda soo ma ogid kadib waxay odhan jirtay meel heblaayo waqtiga saacad marka intaa marayso ama xilligaa la yahay ballantaa inoo ahaato laakiin dee qori iga dhig may qori ma hayo may iga dhig gabaati hadallo badan baa wax la gorgortamaba lacag la yidhaahdo lay iyo qori ayay noqon jirtay gabadhii habeenka lala baxayo in la reebo lacagta layga ah waa lacag la siinayo wiilkan u dhexeeya gabadha iyo wiilka u dhexeeya gabadha adeerkeeda dee wuu rafaaday habeen walba labadooda isu geynayay wuu kala teelaynayay nin u dhexeeyu ahaa sooma ninkaasaa lacag loo keeni jiray haddii marka habeenka gabadha qori laga dhigayo qoriga dee aabaheed baa iskale laakiin ninka layga iyo lacagta loo dhiibay ayaa qoriga ka qaadi jiray kadib waxaa lagu ballami jiray 4-5 saac oo habeenimo meelaha inuu yimaado ninka gabadha la baxaya wiilna uu soo kaxaysto gabadhii iyo wiilkana way sii diyaar garoobhayaan hayba marka meheblaayo maartay imaada uu dhahayaa kolkayna yimaadaan iyo soo tallaabayaan oo wiilka loo sheegayo hadee waan diyaar baan nahay waxanaga noo diyaarsan yahay bas gabadhii buu sheegayo dhahay durba xoolaha lis durba hawsha dhamee dee waa layna sugayaa diyaar hayrbay soo baxayaan oo kuwii meel ku sugayaa yaa la isku daray oo la israacin lacagtiisii iyo maartay qorigiina uu ka qaadanaya waxaa la yidhaahdaa show gabar taas oo kale loogu taagan yahay oo inay caawa nin raacda doonaysa ayaa cirka saa intay u dhowrtay bay tiri alla dayaxan 15aadka qurux badana waaba iska maalin alla yaa nin raaca bay tiri kolkaasuu yidhi aabeed waxba ogeyn dee adigu waa raac nin baa kugu diidaya hore baa ka u soo xidhatayba la waaba aroortii adoo markii aroortii la waayo sheekadii horaan ku noqonayaaye oo la fahmo gabadha in lala baxay geed baa la waabi jiray bahal geedo weyn ayaa intii la waabo oo sidii balbaladii loo dhiso oo bahal kashkaasha laga buuxiyo oo daahiyo go'yaa lagu xidho oo maartay yaa halkaas lagu sugi jiray intay ka imanayaan iyagoo marka walaaya doona imanayaan geedkaasaa lagu xarayni gabaatigii baa laga qaadani waxaa weeye alaabtaasaa maartay laga guri marka gabaatigii laga qaato oo xoolihii ay loo qalay cunaan ayaa gabadha halkaas meherkeedu ka dhici jiray gorgortan iyo yaradkaana lagaga wada hadli jirayoo waxa la isla meel dhigi jiray sheekada gabadha aabaha dhalay u dhihi jiray waxaa ka mid a gabadhayda reerka waa uu xoolo waana uu xoog gabadha reerka waa uu xooga dee ciidankii reerka ay ahayd oo haddii dhaan noqon lahayd iyo haddii xoolo xoog bay ahayd waana uu xoolo dee hanti baa laga rabaa haddii la guursado xoogeediina aan weynay dee xoolaan u baahan nahay halyarada halkaa laga soo dhuru jiray guurka 18aad oo ahaa midkan ugu dambeeya waa guurka loo yaqaanay geed fadhiisiga guurka noocanihi waxa uu ahaa nooca ugu muhiimsan uguna sharafta iyo karaamada badan
marka loo eego bulshada dhexdeeda. Waxa uu ahaa guur ay isku soo afgarteen ama ay isku raacsan yihiin ama ay kalsooni ay ku haystaan wiilka iyo gabadha isguursanaya iyo qaraabada labada dhinacba. Waa guur si wada jir looga wada qayb qaadanayo oo la og yahay xilliga uu dhacayo iyo qof walba qiimaha iyo heerka uu joogo. Gabadha loo soo fadhiistay ee geedka lagu bixinayo waxay ahayd gabadh qaali ah. Waxaa laga bixin jiray geel badan, fardo iyo qori, waxaana si wada jir uga qayb qaadan jiray guurkeeda labada dhinac. Guurkani wuxuu ahaa mid jaan go'an oo waqti leh. Inta badanna waxaa lagu hagaajin jiray xilliyada la nasan yahay sida gamashiga, xilliga roobku da'ayo, xilli la nasan yahay kaliisho oo kale iyo jiilaalka iyo xilliyadaas laguma hagaajin jirin. xilli la nasan yahay oo dhulku barwaaqo yahay ayaa lagu hagaajin jiray. Cabdi Gorod, abwaankii weynaa, Ilaahay ha u naxariistee, gabadhuu jeclaaday gabay uu ku ammaanaya wuxuu ahaa: jinta xoogga weyn iyo laftaada jamalka moodayso, jigta socodka, jaamaha baryaha, joodariga laabta, jiljileeca laafyaha markay jagac ka siinayso, jamba lama ahaadee xubnaha say u kala joogto, sanka joogga dheer iyo afkood jinowga moodayso, sida johorad nuurkeed ishay nagu jalleecayso, qalbiga i jiito inaan jooga la imoodye, gabadha jacaylkan u qabo wou jirrabnahay. Gabadha jacaylkan u qabo wou jibaysnahay. Intaa haynoogu joogto qaybtan ugu dambeysay ee guurka. Halkaasaynu kasii wadaynaayo qaybihii kale ayaynu u gudbi doonaayo waxa inoogu xiga hadduu Ilaahay yidhaahdo qaybaheenii kale. Waxaadna kusoo dhawaan doontaan suugaantii laga tiriyey isla guurkan iyo mahmaahyadii. Waxaana kasii dambeyn doona qaybaheenii kale aynu horeenba usii sheegayno ay kamid tahay qaybahan hadda halkan ka muuqdo oo ahaa qaybihii maaragtay dhaqanka iyo hiddaha. Walow gabaygu uu aad u badan yahay, haddaan nimankan gabayada dhammayno waxay noogu xigayaan dhaqanka oo waxa weeye aynu kor kusoo xusnay, sida maaragtay suugaanta noocyadeeda kala duwan oo aynu mid u kala qaadi doono, iyo haddii Ilaahay yidhaahdo ciyaarihii hadday saar noqon lahayd, hadday maaragtay dhaanta noqon lahayd, waxyaalahaasaan ka hadli doonaa hadduu Alle idmo. Laakiin hadda halkaa haynoo joogo.